Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba waxaan rabaa inaan ka hadlo. Haddii aanu cusubtiin subscribe-ka like noo saara. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkii safri lahaa eelaboorka Xamar oo diyaaradihii ka xanimeen lacag lagu kordhiyay darteed $9 inaan wax ka dhahan rabaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo garaadada saddexda aadaya Djibouti. Waxaan markaa hore rabaa inaan ka hadlo garaadadaas. Garaado waxaan leeyahay garaado odayaashu waxay tihiin dadku ay wax ka maqli lahaayeen. Caqligu inuu shaqeeyaa fiican. Gantaalkii laascaana ku dhacay oo gabdhaha dilayay caruurta oo guryaha ninka burburiyay oo masaajidka burburiyay, ninka soo tuurayay, ninka gantaalka u soo dhiibayay hubka u soo dhiibayay uu ku dhufanayo Ismaaciil buu ahaa. Hubka Ismaaciil baa soo dhiibayay berberin ka soo degay. Muuse Biixin waa kugu dhufanayay. Hadda cadowgii geesay ka fadhiyaan. Ciidan Somaliland waxay ka faa'iidaa kaliya jamada SNM inay dhulbaahanta kala furfurto, kala daadiso, isku dirto, hubna iskugu dhiibto. Kadibna asagana intuu soo galo dadku wax caqligii leh iyo culimadu ka laayaan wax kale ma rabaan. Waa sidii hore la dhaqmay. Anu garaado waxaan leeyahay Djibouti haadina. Ismaaciil ma gele inuu idinkala shukaansado oo adig garaadadii intii badnaydna ay diido idinkoo saddex aad dhahdaan inaga aadayna oo diyaarad baa noo soo diraya oo garaado aadi la dhaho waa wax laga yaxyaxo. Guri hadduu qabya idinka yahay dadka garaadada tiinay dhulbaahanta waxaa dhahdaan guri baa iga qabya guri ha la ii dhiso. Hadda is leeyihiin Ismaaciil waxbuu soo laabaya oo idin siinaya. Intaasaan idinka leeyahay. Sun yaa laydin soo siinin. Sun Qatar waxaa jirta 8 bilood kadib ku dilayso loogu talagalay. Dhowr bilood kadib ku dilaysa. Maama Khadiija ayaa aaday ayadoo caafimaad qabta Djibouti. Ayadoo meedaa laga soo ceshay. Meesha dadka lagu khaarijiyaa garaadow ka jooga. Saasaan idin leeyahay. Rubaantan waxaan leeyahay mideysanaada cadowgiin waa hal mid. Waa midka halkaa idin fadhiya idin soo goodinaya. Warankiisa iska ilaaliya. Taas intaas uga baxaya. Eelaboorka Xamar mid baan ka leeyahay. Xasan Sheekh Maxamed walaalkiis baa eelaboorka jooga. Haddana waxaa la leeyahay $9 lagu saartay waa walaalkiis waa dadkiisa Xasan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed baa iimaanka Allah buuxsha. Kursi waa ku fadhidaan. Basaska ka shaqeeya eelaboorka gudihiisa idinka Xasan baa iskale dowladii hore ayuu xoolaheedii ayuu ka gatay. Iridka laga qaadiyaa diyaaradda agteeda $6 lagu geenaya. Iimaanka Allah buuxsha, iimaanka Ilaahay ka barya. Diintu waxay leedahay waxa cunti hadaa iishid waxa fiican in Ilaahay caabudo kaliya xaaraan aad cunin. Marka waxaan idin leeyahay dadka shacibka ha dhibina. $9 aad kor saarteen ka daay hadda dowlamaadkii waa xanibteen. Maalmay dadku socon waayay maalin bay socon waayay labo adigu hadda waa sii dayseen laakiin se kamid samrina waxaa rabtaan dadku markay aamusaan haddana $9 inaad kor soo saartaan. Waxaan Ilaahay ka baryanaa iimaan idin yeelo. Maxaa yeelay qarankii idinka hadda maamula. Welina waa dhargilaadiin. Ilaahay iimaanka idin buuxsho. Idinla yaabmeen. Maxaa yeelay markii Mareykanka uu ka baxay eelaboorka Soomaaliya markii dowladda inta burburtay ayaan dambe Mareykan dhisay. Markuu Mareykan idinka baxay oo waddan ka tegay safitooyinka dhistaan waa fiiqateen. Diyaaradda Mareykan ma soo degin dhagax baa ku shubteen eelaboorkii. Marka dad ismaamuli karina ma tihiin.
haddii dowlad la dhisay oo maamul iyo hadda wax la bilaabo maamulka lidin dhiibayna dad wax maamuli kara ma tihiin, dad wax laga maamuli karin ma tihiin. Isku xishooda idin leeyahay, iimaankana allah idin buuxsho. Wayin soo duceyneynaa. dadka shacibka lacagta kor saaraysan iska dhaafa, dowladda idinka haysta. Waxaan halkan taas uga sheegayaa ninka la yiraahdo cali sheekh xasan sheekh maxamed soo madaxweynuhu ma waa cali sheekh maxamed ninka la leeyahay. dadka ha dhibina, lacagta kor saarkaana ka daayay. intaas ayaan idiin sheegayaa, iisan dadku idinka kala cararin. barnaamijka halkaasaan ku baxayaa. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabaday.